Assalaamu calaykum. Kusoo dhawaada kanaalka Tarjumaad. Wiil aad u yar ayaa wuxuu soo galay goob timajara ah. Kadib ninkii timajaraha ahaa ayaa wuxuu xantay wiilka yaraa. Mid ka mid a dadkii uu timaha u jarayay ayuu dhagta ugu sheegay wuxuuna yidhi, wiilkan waa wiilka adduunka ugu doqonsan, waanu ku tusayaa inuu doqon yahay ee wax arag. Ninkii timajaraha ahaa wuxuu sameeyay gacantiisa ayuu wuxuu saaray dirham, gacantiisa kalena wuxuu saaray 25 fils. Filsiga waa lacag aad uga yar dirhamka, waxaana lagu qiyaasaa inay tahay dirhamka oo loo qeybiyey 6 hal qeyb oo ka mid ah. Kadib wiilka ayuu u wacay wuxuu yidhi labadan lacagood mid dooro. Wiilkii waxa uu qaatay lacagtii yareed oo 25 fils, waa uuna iska tegay. Kadib ninkii timajaraha ahaa macmiilkii ayuu wuxuu ku yidhi, haye sooma aadan arkin wiilkan waxba ma yaqaano, ma kala yaqaano labada lacagood midda badan, waana wiilka ugu doqonsan caalamka. Mar walba uu ii yimaadana sidaan ayaan sameeyaa, wuxuuna qaataa lacagta yar. Ninkii macmiilka ahaa oo timaha loo jarayay markii banaanka u soo baxay wuxuu arkay cunugii yaraa oo kasoo baxaya dukaan lagu iibiyo jalaatada. Markaas ayuu u wacay wuxuu yidhi, adiga mar walba maxaad u qaadataa 25 fils oo aadan u qaadanaynin dirhamka, soo ma ogid inuu dirhamka weyn yahay? Wiilku wuxuu yidhi, haa waan ogahay dirhamka inuu badan yahay, laakiin maalinta aan dirhamka qaato cayaarta waa ay dhammaanaysaa. Wiilku haddii uu qaato dirhamka, timajaraha wuxuu ogaanayaa wiilkan inuu caqli badan yahay, maalin dambana wax ma siinayo. Dadka qaar waxaan u malaynaa inay caqli yar yihiin, laakiin xaqiiqada waxay tahay inaan annaga yaraysanayno. Ha xaqirin hana yaraysanin qof bini'aadam ah. Innal bacuudata tudmi muqlata al-asadi. Kaneecadu waxay dhiig ka keentaa isha libaaxa. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Fadlan haddii aad ku cusub tahay kanaalkan Tarjumaad, subscribe saar, gambaleelkana riix si ay kuu soo gaaraan muuqaalada cusub ee aan soo gelino.